kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalka All Banaadir ku soo dhawaada wararka 24 saac ee janalka All Banaadir qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah hay'adda socdaalka oo dib u shaqo bilaabayso soo saarta habraac ku socda muwaadiniinta Soomaaliyeed faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qarax khasaare geysta oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland dawlad goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland oo daafuray imtixaanka dugsiga dhexe taliyaal ka tirsan ciidamada Puntland oo la xiray warar dheeraad ah oo ka soo baxay dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wararka ka baxsan Soomaalida oo aad daawan doontaan waxaa kamid ah qaramada midoobay oo ka dayrisay xaaladda 10,000 oo qaxooti Yemen ah daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararka 24 saac ee janalka All Banaadir imika iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo inta ka faahfaahsan aynu ku bilownay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u shaqo bilaabayso iyadoona soo saarta habraac ku socdo muwaadiniinta Soomaaliyeed hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in dib ay u bilaabi doonto bixinta baasaboorka Soomaaliga maalinta Axadda taariikhduna ay ku beegan tahay 12 Juulaayo 2020 bilihii la soo dhaafay guud ahaan waxaa hakada shaqada hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha sabab la xiriira cudurka COVID-19 waxaa sidoo kale hay'adda socdaalka ay soo saartay habraac looga taxadarayo waxyeelada caabuqa COVID-19 oo laga doonayo muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay raacaan wuxuuna noqonayaa sida soo socoto xarun kasta oo baasaboor laga bixinayo waxay qaabili doontaa kala bar tiradii hore ee la qaabili jiray 50% muwaadin walba oo imaanaya xarunta bixinaysa baasaboorka waxaa laga doonayaa in uu xirnaado afxir ama maas iyo gacmo gashi ama gloves marka uu soo galayo xarunta iyo inta uu gudaheeda ku jiraba qof kasta waa inuu ilaaliyaa masaafada kala fogaanshiyaha social distance iyadoo qof waliba laga doonayo in uu istaago barta loo calaamadeeyo ama loo tilmaamo dhanka kale codsiyada baasaboorka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir oo tiro ahaan ka badan deegaanada kale awgeed waxaa loo diyaariyay 2 xarumood oo baasaboorka laga bixin doono mid walibana ay qaabili doonto codsiyada muwaadiniinta degan degmooyinka raacsan sida tan xarunta Cabdicasiis dhismaha wasaaradda kalluumaysiga waxay qaabili doontaa codsiyada muwaadiniinta ku nool 8 degmo oo kala ah Cabdicasiis Kaaraan Hilwa Shibis Shangaani Boondere Xamarweyne iyo Yaaqshid xarunta degmada Hodan guriga shaqaalaha waxay qaabili doontaa codsiyada muwaadiniinta ku nool 9 degmo oo kala ah Hodan waa bari warta nabadda wadajir Daynile Holwadaag Xamar Jajab iyo Dharkiinley talaabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddo dheer buu hakad ku jiray bixinta baasaboorka dad badan oo Soomaaliyeedna ay sugayeen waqtiga la furi doono bixinta baasaboorka ama dib ay u bilaabi doonto hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka dawlad goboleedka Jubbaland ay waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay qarax sababay khasaare kala duwan sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka bamba gacmeed ayaa waxa lagu weeraray maqaayad ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland goobta qarax lagu weeraray ayaa inta badan waxa fariisan jiray ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland waana mid ka mid ah meelaha shaaha lagu cabo ee ku yaala magaalada Kismaayo sida wararka aanu ku heleeno qaraxaas waxa ku geeriyooday wiil yar oo 12 sano jir ahaa oo ku sugnaa goobta qaraxu uu ka dhacay sidoo kale waxa la xaqiijiyay in 8 ruux oo shacab ah ay ku dhaawacmeen weerarkaas kuwaas oo ku sugnaa maqaayadda bamka lagu tuuray ciidamada ammaanka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa gaaray goobta uu weerarku ka dhacay waxayna bilaabeen howlgallo ay dad ku soo qabteen maamulka Jubbaland wali ma aysan shaacin dad loo soo qabtay qaraxaas oo la xaqiijiyay in ay ku lug lahaayeen marka laga tago howlgallo ciidankaas ay sameeyeen markii qaraxa uu dhacay kadib inkastoo ay jiraan dad ciidamadu ay ku tuhmayaan in qaraxaas waxyeelada soo gaarsiiyay dadka shacabka ay ka dambeeyeen balse waxa laga warsugayaa hay'adaha amniga dawlad goboleedka Jubbaland goorta ay soo bandhigaan dadka ay ku tuhunsan yihiin inay qaraxaas ka dambeeyeen magaalada Kismaayo oo ka mid ah magaalooyinka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ahayd mid xaaladeeda amni ay hagaagsan tahay inkastoo markii hore ay dhici jireen falalidi ku ah amniga oo u badan dilal iyo qaraxyo qorsheysan oo ka dhaca magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland kuwaas oo la beegsado mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo sidoo kale dad shacab ah oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ayaa daafuray imtixaanka dugsiga dhexe madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Jubbaland ayaa daafuray imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe imtixaankan ayaa si rasmi ah uga bilowday deegaanada maamulka Jubbaland waxaana imtixaankan u fariistay ee deegaanada Jubbaland arday gaaraysa 2362 arday sidoo kale 2561 arday ayaa deegaanada Galmudug u fariistay imtixaanka qaranka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe
oo ka dhacay 18 goobood oo ku yaala galmudug magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo ka mid ah goobaha imtixaankan uu ka bilowday oo lagu daafuray arday gaaraysa 220 arday ayaa waxaa daafuray wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda axmed nuur cusmaan iyo kormeer ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jira diyaargarow ay sameynayaan ardayda deegaanada maamulka galmudug kuwaas oo isku diyaarinayaan inay galaan imtixaanka qaranka oo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe waxaana wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ay hore u shaacisay in ardayda ay la garab istaagi doonaan dadaalka ay muujinayaan ardayda xilligan wax ka barata deegaanada maamulka galmudug imtixaankan ayaana ahaa mid ay aad u sugayeen ardayda maadaama waqtiyadii dhawaa uu u baaqday xayiraadii cudurka COVID-19 kaas oo saameeyay guud ahaanba dalka oo idil waxaana maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee imtixaankaas ay u fariisanayaan ardayda deegaanada maamulka galmudug saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa xabsiga la dhigay wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ayaa waxay sheegeen in maamulka Puntland ay xabsiga dhigeen taliye ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle Cismaan Maxamuud Buraale iyo taliyihii saldhigga bartamaha caasimadda Garowe Dhamme Maxamuud Muuse Bile Puntland ayaa ku eedeysay labadaasi sargaal in ciidamo ka tirsan booliska gobolka Nugaal oo ay ka mid ahaayeen labadaasi sargaal isla markaana loo qaaday magaalada Qardho si tababar halkaas looga furo ayaa la sheegay in halka ay ka geysteen gaboodfallo kooban inkastoo markii dambe arrintaasi la xaliyay xariga labada sargaal ayaa la xiriirinayaa gadoodka ay sameeyeen ciidanka balse saraakiisha booliska iyo guddiga dib u habeynta ciidamada Puntland ayaana wali ka hadlin dhacdadaas lagu xiray labada sargaal sidoo kale maalmo ka hor ayaa waxaa gadood sameeyay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo kuwaas oo diidanaa in la diiwaan geliyo balse markii dambe lagu qanciyay diiwaan gelinta la waday dhawaanahaanba deegaanada maamulka Puntland waxaa ka socday diiwaangelin lagu waday ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland waxaana ugu dambeeyay goobaha lagu diiwaangelinayay ciidamada maamulka Puntland magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo halka uu ku sugnaa madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inkastoo ciidamadaas ay ka xumaadeen diiwaangelinta la sameeyay oo la sheegay in laga tagay saraakiil howlgab ahayd oo ka tirsanaa maamulka Puntland waxaana gadoodkaas ay sameeyeen ciidamadaas uu sababay inay xirtaan wadooyin muhiim ah oo ku yaalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inkastoo markii dambe lagu qanciyay ciidamadaas in la diiwaan geliyo lana furo wadooyinka u xirnaa gobolka Mudug waxaa ku sugan guddi maamulka Puntland oo u saaray diiwaangelinta ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland sida daraawiishta iyo booliska maamulka Puntland waxaana guddigaas ay sameeyeen meelo badan oo diiwaangelin ah oo ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin inkastoo magaalada Gaalkacyo ay muddo dheer ku qaadatay maadaama ciidamada lagu qanci waayay diiwaangelinta ay wadaan guddigaas oo loogu talagalay inay diiwaangeliyaan dhammaan ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland sida ciidanka daraawiishta iyo booliska oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lama ogo tallaabada kale ee xigi doonto xariga loo geystay labadan sargaal oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland kuwaas oo dhawaan gadood ka sameeyay deegaano ka tirsan maamulka Puntland daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo aad la socotaan wararka 24 saac ee janalka All Banaadir markaana akhbaraadka caalamka qaramada midoobay ayaa ka dayrisay xaaladda 10 milyan oo qaxooti Yemen ah qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay in ku dhawaad 10 milyan oo reer Yemen ah ay la soo diristo cunno yari ba'an qaramada midoobay ayaa carabka ku adkaysay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah loo qaado sidii looga hortagi lahaa macluusha halka ka jirta warbixin ay soo saartay dhawaan qaramada midoobay ayaa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay 737 milyan si loo soo afjaro sanadkan cunno yarida iyo dagaalada sokeeye ee dalka Yemen waa inaan tallaabo qaadnaa hadda haddii aanu sugno in lagu dhawaaqo macluul durba way soo daahi doontaa maadaama dadku durbo ay dhiman doonaan ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay Yemen waxay wajahaysaa dhibaatooyin dhinacyo badan leh taas oo dadka qaxootiga si baan u saameeyay waxayna soo dedejin kartaa in uu hoos u dhac ku yimaado qiimaha cuntada ayaana kor u kacaya dhaqaalaha ayaana hoos u dhacay dalka Yemen kaydka lacagta qalaad waxay ku dhawaanaysaa in ay dhamaato gebi ahaanba sidaas ayaa lagu yiri warbixinta qaramada midoobay ee dhawaan soo saartay xaaladda dalka Yemen uu ku sugan yahay xilligan ayaa waxay tahay mid dagaal sokeeye ay ka socdaan waxaana shacabka reer Yemen ay ku barakaceen wadamo badan oo diris la ah Yemen waxaana jira dadka qaarkood inay u barakaceen gobollo fogfog oo ku yaala Yemen maadaama Yemen meelaha qaar xilligan aysan dagaal ka socan dhammaan dadkaas qaxootiga reer Yemen ah ee ku barakacay gobollada Yemen ay ka kooban tahay ayaa waxaa la soo diristay cunno yari sidoo kalena waxaa hoos u dhacay qiimihii lacagta ay ka lahayd dalka Yemen xilli maciishaduna ay sare u kacday hay'ado badan oo ka shaqeeya bini'aadanimada ayaa horay uga codsaday qaramada midoobay in ay ka taageerto sidii wax looga qaban lahaa cunno yarida soo wajahday shacabka reer Yemen gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee xilligan ku nool dalkooda hooyo
daawadayaal intaasi waxaa ku dhan wararka 24 saac oo aad kala socoteen janalka ol banaadir waad ku mahadsantihiin la socodka ee la jaanqaadka warkeena